بإنجك أما الدوهنية موجني وحكود عينه ربي كفقاده وحكود حب الدنيا دنك كلاين والصعداء الدون شعيل وحكود إنه ذنوبته ودنبضاها مسوي قاله ولذلك آذنه كمان مر نبا التذكير والوعد قفك بن آدم كاي مرنا كمان مار موانو عضد موانده ووحشاق وحلو قاطه وحلا دا قفك بن آدم كا مر عقل قيسال لهد الله وشيء دلدي سيا وحسوق يا لغا ورما مركا waxay dhaadaan waa hadal mantiqiya oo aqliga la waramaya marna qalbiga la hadla oo qofka bini aadamka wujdaankiisa iyo damiirkiisa iyo dareenkiisa ihsaaskiisa ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala la hadla oo waxa keena cabsida iyo baqaha iyo rajada iyo xubbiga iyo kurhiga iyo wixii la mid ah انت بدن اعمال القلوب وحبضنا كصاب سنه ومن هذا الباب انساكم مركز الهي سبحانه وتعالى قران كمركو ينوت الماميو سيددك الدين تلوغو يريو حتى المام يدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن رب سبحانه وتعالى وحتى الماما يدتك وير ألا دينتي ألا كتابك إلهي طريقيس وحانا وير دادقو هذيك سنة أسلوب الحكمة أضمانك الله الضيا حكمة هذيك سنة وحقلك بنادم كقنعين كنا هي والموعظة الحسنة بإلهي وأنا دفي عن وأنا في عن واني برب إليه سبحانه وتعالى إلهي بادنا وحكت المام يكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال إلهي المام يا قلبي ود حليستي الرانك ود حلك كروش ضد سدى دحل وقلبك كفولي وحان دحلك الصبابي با إلهي لي سبحانه وتعالى وحي كسبني ولذلك علماء وحي هذا من أصول الكتب المنزلة كتبت ألا سودة شيء لما أنتوا وحيابه كل واقع كتبت السماوي وعد باك وضمده وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كور رميه سببها اللي سودة شيء وحكم إذا با إلهي لي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارضضوا با إلهي لي يا أيها الناس يا أيها المؤمنون معه يا أيها الناس بإله إليه ضدردن آدنه هو النوع قرى تتكبر باوها استا آدنها عقلك قرى إلا لحظة مايا آدنه الدمانتي إن قلوبتي سلا لحظة نوبهين إن روحي سلا لحظة سادر أدد بإله وحلي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وأنا حق ربي إذن كتب كتاب القرآن ودن إلهي وصف قابو سيئين يهي موعظة وانا انو يهي حق الرب كتم سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور وحيكو عافي ما دال لابت حلالي وحنون لاب كدعه وحعافي ما ديه وإلهي كتاب سبحانه وتعالى هنون ين حارس قارنا وحوسي هي انت الرميسي بني ادم كوانا كما مارنا صحابتي النبي محمد بهلكا تاغن ولا marka nabiga la joogana saasaarna marka maxaad u maleynaysaa inagu markaynu suuqa qabanno maanta masaajidka intaanu nabada cidinayna waaninin intaad afar salaadood ku tukato ama saddex intii aad halasho intaad ku tukato aad ka tagto intaad milmaysaa markaa intaad milmaysaa ibnu mas'uud xadiiska saxiixayn ku yaala wuxuu tilmaamaya كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة نبي عليه الصلاة والسلام مع المها وأنه ميلين شريبولي هاي واندى يسقوا النوقع عبسقبة السآمة علينا إن نداله قفكو نشاط كاسي إيماني مر والبا حلقة بين نفتو داشو إذا تنفيسات كوالو قليه ينسوح يقصدها مبحا معي كان
laakiin waa laabud inuu qofku yeesho maxay inuu rabbiga ku xidhmo waa inuu waane ka maarmin ama caalim ahaw ama miskiin ahaw ama wax aqoon ahaw waana waad u baahanta aakhira adiga laba wax baa lagu weydiinaya mar waxa lagu weydiinaya naftaada iyo waxaad samaysay marna waxa lagu weydiinaya dadka ma gaadhsiisay intaa ila mas-uuliyaddaasa ku saaran nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa aakhir rasuul la soo diro waa aakhir nebi ciddaba soo bixi mayso maca dalik waxa la yidhi maxay waxaa laguu soo diray raxma lilcaalamiin ama litundira caalamkao dhan inaad u digta baa la yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gaadhay in yar bay ahayd waanu dhintay oo caalamka kale ayaa gaadhsiinaya inagu inugu yidhi balliquu canii walow aaya allahuma fashhad buu dabeetana yidhi inagu inugu yidhi dadka kale gaadhsiiya diinta ilaahu markhaati ka ahu inaan weliba gaadhsiiyo u sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markhaatigana waa u fureen saxaabadii waxaanu makuu markhaati furaynaa bay leeyahay annaka qad ballaqta wa nasaxta inaadna soo gaadhsiisay oona waanisay oo diintuna soo gaadhay idan laba su-aalood baa layna weydiinaya aakhir midi waa wixii innaga layna amray inaynu ka soo baxnay in kale midna waxa weeyaan dadka kale inaynu waaninay oo xaqa gaadhsiinay qolada tani markaa waxay leedahay laba sababood baanu wax u waaninaynaa midi waxa weeyaan annagaa cudurdaar aakhiro helayna inaanu annagu badbaadno ka labaadna lacallahum yattaquun waa la arkaa iyagana ilaahay wax kaga duwo idan qof kasta oo xun hayso odhan inkan waana mari mayse waani ka khamriga cabaya waani ka zinaysanaya waani ka cibaada xumadu hayso waani kaa salaada tukanaynin waani qof kasta oo bina kaa gaalka ah waaniyo war ilaahay rumeene qof kasta oo aadanaa ka midi waana kama maarmo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tathbiita waidan laataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraatan mustaqiima dadku waxa lagu waaninaya hadday aqbalaan baa ilaahay yidhi saasaa u khayr badan waa sugmi lahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ajar weynna waa siin lahayn jidka qumanna waa ku toosin lahayn baa ilaahay leeyahy hadday wacdiga aqbalaan yacni inaad wacdi aqbasho waxaasoo dhan ba ka ratibmaya in waddada quman alla ku tusiyo ajar badan alla ku siiyo subxaana wa tacaala ku sugo ayaa ka sugmaysa idan innaga korkeenna waxaa saaran udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana baa korkeenna saaran inaynu ilaahay subxaana wa tacaala dadka xasuusinno si fiicanna u waanino weliba waanadu inaanay noqon xujo aad ku gubayso ee inay noqoto qaab uu qofku u aqbali karo xataa inaad u dhigto idan usluubkaad u wacdinaysaana inuu noqdo usluub dadka qancin kara mawcida xasana isla markaana aljidiya fi lwacd inaad ku dadaalayso wacdiga inaad si fiican dadka aad u wacdidid waxaan ku soo koobaynaa marka aadanaha qalbigiisu wuu gadgadoomaa meel qudhana ma taagnaado haddii wacdiga dhegaysigiisa iyo akhriskiisa iyo barashadiisa kugu bataanna waxaa koraya iimaankaaga iyo daacaadkaaga koraya iyo rabbi xasuusnaanta aad xasuusanayso haddaad wacdiga ka fogaatana waxa uu nabigu tilmaamayaa innamaa ya'kulu الdi'bu min alghanami alghaasiya yayguba ama waraawuba waa adhiga xoolaa wuu didiyaa dabeetana ka cidlada ugu baxa ubuu qaabsadaa haddaad masaajidda iyo meesha dadku ku nool iyo muslimka iyo wacdiga iyo waanida aad ka fogaato inaad lumayso darsigaygu markaa wuxuu ku kooban yahay hal masalo qura masaladaasi waxay tahay aadana dunida kor joogo oo waana ka maarmaa ma jiro ama weynow ama yarow ama cilmi lahow ama cilmi darrow qof waana ka maarmaa ma jiro waxaynu u baahannahay meelsha khayrka lagu hayo iyo waanada lagu hayo meesha kutubta lagu dhigayo ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu akhrinayo rabbi la isxasuusinayo inaad marnaba ka durkin
aad u dhowaato sala allahu calaa muxamedin wala